السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومركلة عشرة تيوريجا سومالي إن شاء الله. وحا عجدا إن غهرسن بلدك عشر كتوانات إن شاء الله تعالى. وأن سكودي دون إن أنضوه أن كشرحه أنت إلهي إغفانسي إن شاء الله بن كريم. وانا بلاوينا لمبر طبان أيا إنو حرسن sida normaalka su'aalahani waan muutinaynaa oo loo yaqaan khibaar herkaninka hadeertan waxaan bilaabaynaa insha Allah afartankani caadiga ahaa hadduu ilaahay idmo maadaama afartanka bilaabayno yani inaan bilaabayno ayaan sheegayaa bismillah start. U wilt hier inrijden, mag dat? su-aasha noogu horeysa wuxuu leeyahay wilt here inrijden adoo gaariga wata inaa halkan ku wada ayaad rabtaa ama waad doonaysaa insha Allah halkan waxaa degan boor diidma ah loona diiday mootooyinka waaweyn oo loo yaqaano motorfitska laakiin haddii adiga gaari tahay laguma diidin kaliya motorfitska unbaa loo diiday soo marka inta ayaa ku wadi rabtaa ma la ogol yahay waha gaari ayaa tahay laakiin mootada maya marka gaariga iyo mootada isku jiraan marka un ayaa lagu diiday ama marka uu gaariga kaligii yahay. U wilt hier inrijden, mag dat? su-aasha xigta wuxuu leeyahay u wilt here inrijden ama waxaa la yidhi u wilt here inrijden inaa halkaad ku wado ayaad rabtaa maqdad ma la ogol yahay halkan haddii aad gaari kali aad tahay waa la ogol yahay laakiin waxaa yaala boor diidma ah oo loo yaqaano qislowta verklaring caddayn xiran oo ah wixii ka badan laba lug loo diiday yani wixii laba lug ka badan wixii laba lug ka badan waa loo diiday maadaama saasay tahay ma geli kartid laakiin mootada weyn iyo mootooyinka kaleete iyo baskiilada waxaas oo dhan way geli karaan laakiin wixii gaadiid oo laba lugood ka badan ma geli karaan so marka waxaan leenahay maya nay. U heeft een ontzegging van de rijbevoegdheid. U mag dan A. Niet zelf rijden, maar wel rijles nemen. B. Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen. su-aashana waxaa la yidhi u heeft een ontzegging waxaad haysataa mamnuucid ama diidmo laga diiday inaad gaariga wado waxaa lagu diiday van rijbevoegdheid ogolaanshaha gaari wadista oo lagu diiday umaqdan maxaa lagu ogol yahay marka waxaa lagu ogol yahay waxba niet zelf rijden inaadan adiga kaligaada gaariga wadin en ook geen rijles nemen iyo inaadan cashiro gaari aadan qaadanin oo cashiro oo gaari wadida maxaa yeelay qalad aad gashay awgeeda oo ay tahay in mataqaanaa qalad weyn ama adoo cabsan ama qof qabir cabsan oo kale ayaa lagu diiday muddo kadibna in lagu fasaxo ayaa macquul ah so raybaskaada asiga oo dhan lagama diidin laakiin in muddo cayiman ayaa lagu diidina gaari wado dhowr bilood maalmo sanado laga yaaba taa hadday tahay cashirna ma qaadan kartid gaarina ma wadi kartid laakiin haddii la dhaho lacala uu rijbewijs is ongeldig verklaard rijbewijskaada waaba la cancel gareeyey totally ama gabi ahaanba marka waxay ka dhigan tahay inaan rijbewijs wiligaada haysanin ama aadan qaadaninba so marka dib cashir waad usoo qaadan kartaa kan hadda waxaan leenahay marka insha Allah bay kan kaletana cashir waad qaadan kartaa weeyaan haddaan ka hadlayo. Hoe kunt u voorkomen dat de aandrijvende wielen tijdens slippen geringer wordt? A. Minder gas geven. B. Meer gas geven. C. Handrem gebruiken.
su-aasha xigta waxaa la yidhi who kunt u voorkomen sideed oga hortagi kartaa dat de aandrijvende wiele goorti lugta wareegata wiele waa lugti aandrijvende markii goorta lugta wareegsanaysa tijdens goortii slippen aad raaraxdo gringert inay yaraato gringert word gringert waxa weeyaan minder un weeyaan inay yaraato yacni sidee uga hortagi kartaa mar baraf jira awgeeda lugta ku macnaha ay macnaha wareeganaysa oo sababo la xiriira barafka ama biyahaba ee lugtii macnaha ku siibato amabaad ku siibato macnaha taayirka gaariga sideed ka yeeli kartaa ama aad uga hortagi kartaa inay yaraato waxaa leenahay minder khaas qayfan gaaska u yaree ama u daabo laakiin hadda waxaa leenahay minder khaas qayfan gaaska ama shil rafaf loo yaqaano u yaree. U rijdt naast een water. Wat doet u? A. Gordel aandoen. B. Gordel loslaten. su-aasha xigta waxaa la yidhi u rijdt naast een water waxaa ku wadaa gaariga biyaha dhinaciisa ku wadaa biyaha dhinaciisa ayaad mare marka wadutu maxaa samaynaysaa waxaan leenahay gordel waa xerga ama suunka aandun ha ku xirnaado su-aashan noocyo badan amaba mataqaanaa qaabo badan ayaa lagu weydiinayaa biyaha garabkeeda ayaa socotaa maxaad samayne soo marka mar walbaba suunka ha ku xirnaado un ayaad ku adkaysanaadi marka biyaha ag marayso suunka inuu xirnaado weeyaan ina furto maaha ama xerga inuu ku xirnaado. U komt met uw auto te water. Wanneer is het ontsnappingsmoment? A. Ontsnappen als de auto boven water drijft. B. Ontsnappen als de auto onder water is. su-aasha xigta waxaa la yidhi u komt met uw auto te water adigii gaarigaada biyaa ku dhacdeen wanneer is het ontsnappingsmoment goormee weeyaan waqtiga ka baxsashada ontsnapping waa baxsasho inaad baxsato ama isbadbaadiso goormee weeyaan goorta aad baxsanayso momentna waa goor momentna waa markaad baxsanayso waa goormee marka biyo adi iyo gaariga ku dhacdaan inta uu gaariga biyaha hoos uusan u marin ayaad ka baxay waa ontsnappa ka baxso als de auto markuu gaariga boven water drijft oo biyaha korkiisa ama waa dushiisa uu saaran yahay ka baxso laakiin bayda waxay leedahay ka baxso gaariga markuu biyaha hoos maro yacni markuu quuso ay dhahaan Soomaalida marka waxaan leenahay intuusan quusin ka baxso hadduu quuso waxa ku adkaanaysa baxsashada insha Allah. Een inhalende tegenligger komt u tegemoet. Wat moet u hier doen? A. Krachtig remmen en berm insturen. B. Snelheid verminderen. C. Geluidssignaal geven. halkan waxaa la yidhi in inhalende tegenligger gaariga cadka wuxuu soo inhalgareeyay gaariga weyn meesha taagan soo marka gaari soo inhalgareynaya amaba qof ka hor imaanaya tegenligger waa wax ka hor imaanaya oo soo baasgareeyay komt u tegemoet ayaa ka hor imaaday wat moet u hier doen halkan inaad samayso maxay tahay maadaama gaariga uusan meelo kale ka baxa lahayn adiga waxaad samaynaya snelheid verminderen xawaaraha oo yaraan si uu markuu sayidkiisa galo intuu sayidkiisa ka galaayo ama intuu ka galaayo qaybta loogu talagalay xawaara u yaray soo jaanis ugu hel inuu halkaa u galo marka waxaan leenahay bayda oo ah snelheid verminderen xawaaraha u yaree sayida waxay leedahay hoonka u yeeri ama dhawaaqa u yeeri aadan waxay leedahay frin xoogan qabo dhinaca cooskana u hag baabuurka waa qalad marka B ayaa sax. U rijdt overdag met groot licht. Mag dat?
waxaa la yidhi su-aashaan u ride overdag waxaad ku wadaa maalintii met groot licht nalka weyn makhdaad ma la ogol yahay waa maya totally amaba waaba gabi ahaan nalka weyn maalintii lama ogola nalka weyn waxaa la ogol yahay keliya waa haween ayna tahay madow ama mugdi oo uusanne gaari ama wax gaadiid ah uusan ka hor imaanaynin amaba aysan kaa horeynin si aadan yani waa nalka weyn aad uga carqadeen waa nalka weyn haddii aad daarto qofka indhaha ayuu ka qabanaya ama ka horeeyo ama wax ka hor imaado so marka waa mar una kaligaa tahay aad daaran kartaa haweenkiina ah. Wanneer mag u bij dag met groot licht rijden? A. Nooit. B. Bij zeer dichte mist. C. Als het voertuig deel uitmaakt van uitvaartstoet. halka waxaa la yidhi wanneer goortee mag u ayaa lagu ogol yahay by dag maalintii met groot licht nalka weyn rijden inaad ku wado hadda ayaa soo sheegay nooit gebi ahaanbo maalin in aan nalkii fulka weynka ahaa amaba waa leerka weynaa inaad daarata lama ogolo. Heeft de lading van een auto invloed op de verlichting van een auto? su-aasha xigta waxay leedahay heeft de lading miyay leedahay lading waa rarka ama waa alaabtaad ku qaadaysa gaariga van de auto oo gaariga invloed saameyn miyay ku leedahay op de verlichting waa nalalka gaariga op de verlichting waa nalalka van de auto ama van in auto oo gaariga wax allaala waxa aad qaadayso gaariga saameyn bay ku leedahay iftiinka amaba waa nalka ama leerka gaariga saameyn buuxda ayay ku leedahay so marka waxaan leenahay influence bay ku leedahay ya in badan su'aalaha lagu dhaho influence miyay leedahay waxaasi waa ha ama waa ya. Moet u de voetganger met blinde stok voor laten gaan? su-aashan waxaa leeyahay xigta mud uma ku khasban tahay adigoo gaariga wata the voetganger qofka lugeynaya soconaya met waa blinde stok oo wata usha indhoolaha for laad inaad horumarido waa haa waxay ka mid yihiin waxa loo yaqaano waa zwaka weggebruikers dad oo nugul amaba waa jilcan oo isticmaala wadada ama waa erey kaleete waa kwetsbara weggebruikers kwetsbara wax weeyaan waa wax wadada isticmaala oo haddana nugul ayuu ka mid yahay haddana qofka indhoolaha ama qofka wayeelka ah oo kale oo birta wax ku soconaya way ka sii daran yihiin. U verlaat achteruit een uitrit. Wie moet u voor laten gaan? A. Alle bestuurders. B. Alle weggebruikers. su-aasha waxaa la yidhi u verlaat waxaad ka baxaysaa achteruit adoo gadaal u socda en uitrit meel laga baxo ama ganjeel ama albaab ama meel uitrit oo taag yar ah oo aad ka baxayso oo loo yaqaana uitrit wie moet u voor laten gaan yaa ku khasbanta inaad horumarido alle weggebruikers cid walba wadada isticmaalaysa waa horumarinaya xataa qof soconaya ha ahaado. U komt als eerste bij een ongeval. Waar begint u mee? A. Eigen veiligheid in acht nemen. B. Zorgen voor de slachtoffers. C. Andere bestuurders attent maken. su-aasha xigta waxaa la yidhi u komt als eerste bij een ongeval ugu horeyn shil ayaa gashay waar begint u mee halkeed baad ka bilaabaysaa waxaad ka bilaabaysaa ugu horeyn eigen veiligheid waa ammaankaada in acht neema xaqiiji ugu horeyn ammaankaada sug kadib wax kale ka fikir so waxaan leenahay eigen veiligheid in acht nemen ammaankaada ama waa badbaadadaada xaqiiji horta ugu horeyn. U staat met uw auto met pech zonder knipperende alarmlichten. Waar plaatst u de gevarendriehoek? A. Op 30 meter afstand. B.
op 50 meter afstand. C. Op 20. C. Op 20 meter afstand. su-aasha xigta waxaa la yidhi ustaad mid u auto med pekh adiga iyo gaarigaada waxaad taagan tihiin meel adoo nasiib darre ku haysato med pekh waxa weeyaan gaariga ka halaysan ayaa laga hadlayaa pekh gaariga ayaa ka halaysan ama waa cilad kaaga jirta zonder waa kniprent alarm liqtan adigoona nalka farajooyinka aadan daaran waar plast uu halkeed dhigaysaa the khivara driehoek saddex geeslaha halista op 30 meter afstand waa 30 meter meel ku jirta waana A. Kunt u bij dit bord een versmalling van de rijbaan verwachten? su-aasha xigta waxay leedahay kunt u bij dit bord boorkani een versmalling boorkan miyaad rajayne mise ka file in wadada lasoo yareeyay the rijbaan verwachten yacni kunt u bij dit bord een versmalling van de rijbaan verwachten boorkan miyaad ka filaysaa in wadada baabuurta ku socoto lasoo yareeyo waa haa waayo boorka wuxuu sheegayaa laba gaari inaysan isku dhaafi karin oo aadaad adiga dhankan aad ka imaaday falaartaada ay cadaan tahay oo aad lagu leeyahay waad mari kartaa laakiin qofka hadduu ka hor imaanayo falaartiisa waa gaduud waa inuu ka istaagaa maxaa yeelay laba qofood iskuma dhaafi karto waxaa lagu soo yareeyay biro amaba meel lagax la dhisay oo kaleete aa lagu soo yareeyay wadada ama qaabab kaleetaba so ma file wadadan in lasoo yareeyay haddaa boorkan aragto waha Wat betekent dit bord? A. Spitsstrook open. B. Spitsstrook gesloten. C. Aantal doorgaande rijstroken. su-aasha xigta waxaa la what betekent dit boordkan macnaheedu maxay tahay boordkan waxa weeyaan waa highwayga ka hadlaya highwayga wuxuu leeyahay dhowr rijstrook waa lagu wado baabuurta kani waa rijstrook kani waa rijstrook wadajirkooda waxaa la isku dhahaa rijbaan laakiin riigada wixii ka dambeeya waxaa loo yaqaanaa fluxstrook oo markuu gaari ka halaabo kaliya inaad istaagto lagu ogol yahay ama markii lagu furo oo haddoo kale boorkan oo kaleeto way ku furanta haddaa aragto markaasna waxaa loo yaqaanaa spitsstroke waxaa la isticmaalaa waqtiyada zaxmada ay jirto subaxii hore iyo waa galabtii ayaa saacado adiga subaxii laga bilaabo waa 6 uur tot 10 uur waxaa loo yaqaanaa spitsuren ama spitstiden waa saacadaha jirta saddexmada oo shaqada loo socdo galabtii laga bilaabo waa 3 uur tot met 7 uur ilaa iyo waa hal saac habeenimo waxa weeyaan iyadana waqti shaqada laga soo laabtay wadadoo dhan saxma ama filla ayaa ka jirto soo marka wadadii fluxstroke ahayd waxaa loo isticmaalayaa spitsstroke ahaan si fillada ama saxmada loo kala fududeeyo soo marka waxaa la yidhi spitsstroke is open waxa way ku furantahay waa isticmaali kartaa weeyaan U wilt hier de langzaam rijdende auto inhalen. Mag dat? halkana waxaa la yidhi u wilt hier de langzaam rijdende auto inhalen gaariga jaallaha ayaa wadataa gaariga ka horeeya la leeyahay waxaad rabtaa gaariga ka horeeya oo tartiibka u socda inaad baas garaydo ma la ogol yahay halkani waa haa maxaa yeelay halka waxaa haysaa laba riiga midna isku xiran tahay midna egagoonta tan gaagaoon dhankaada ayay jirtaa soo mar walba haddii tan gaagaoon dhankaada ay jirto inhaalin waa lagu ogol yahay ina dhanka kale aado laakiin inaad soo laabato hadhowdii way kugu adkaan ilaa ay kuu furanto weeyaan U bent op zoek naar een spoorwegstation. Welk bord kan u daarbij helpen? A. Bord A. B. Bord B. C. Beide borden. su-aasha xigta waxaa la yidhi u bent op zoek waxaad raadinaysaa een spoorwegstation meel oo train laga raaco welke boord kan u daarbij helpen boorkee baa saas macnaa ku caawin kara inaad meel station aad hesho
waxaa ku caawin kara boorka aaga loo yaqaan aadan wuxuu ka hadlayaa waa parkering and reizigers ama waa plus reizigers inaad parking dhigato aadna kasii safarto bus amaba waa train metro aad raacdo so marka boorkaas oo pay plus erta taa way macnaheeda marka waxaan leenahay boor a ayaa wuxuu naga caawin karaa inaan meesha trainka ah helno. De dichtstbijzijnde ANWB praatpaal is na dit bordje binnen A. 1 kilometer B. 2 kilometer C. 3 kilometer. Su-aasha waxay leedahay de dichtstbijzijnde ANWB waa praatpaal yacni midka kugu soo dhow baalaha loo yaqaano ANWB waa praatpaal baala lagu hadlo oo yaala meel telefoon oo aad telefoon aad ka dirto kale waaye is na dit bordje boorkan kadib binnen intuu ku jira intee leeg waa kan baalaha jaallo weeyaan ama huruud waa meel telefoon aad ka diri karto wuxuu ku jiraa 75 ama 750 mitir waa binnen marka 1 kilometer halka kilometerna waa 1000 mitir soo marka halkan 750 mitir waxaan leenahay marka binnen 1 kilometer soo boorkan gadaal dambo waa laga qaaday wadooyinka in badan maadaama hadda bariyaha dambe ay jiraan waa telefoon oo badan sida smartphone wax badan uu jiro soo marka baalahani waa laga qaaday wadada in badan. Kunt u bij de ANWB praatpaal medische problemen melden? Su-aashana waxaa la yidhi kunt u bij de ANWB waa praatpaal ma samayn kartaa baalaha lagu hadlo oo ANWB-da ay leedahay macna medische problemen melden in mataqaanaa oo xanuunsan tahay oo kaleete ma daawo u baahan tahay ma ku sheegi kartaa wax xanuunsanahay in la imaan doonaya waa su-aasha jawaabteeda waa haa hadduu gaari kaa halaawo ama hadduu caafimaad darro kugu soo imaado adoo waddada ku socda inaad istaagto ANWB-ga waad dirsan kartaa ay ahayd waagaa hadduu jirana weli sidii un waaye laakiin in badan ama waddooyinka in badan waa laga qaaday. U wilt hier de eerste verkeerslichten linksaf. Mag dat? Su-aasha xigta waxay leedahay u wilt waxay rabtaa hier halkani the eerste verkeerslicht stoplichtiga kugu soo horeeyo linksaf inaad dhanka bidix u leexato mag dat ma la ogolyahay waa maya falaarta dhulka ku samaysan waxay ku leedahay kani stoplichtiga kugu soo horeeyo dhanka bidix looma laaban karo toos un aad stoplichtiga labaad unbaad leexan kartaa soo marka hadda waxaan leenahay aniga ney looma laaban karo midka labaad un ayaan u laaban karnaa stoplichtiga ugu soo horeeyo ama isgooska ugu soo horeeyo falaartan oo amaba ta'dan ayaa noo diiday lama geli karo kan labaad un baan geli karnaa insha Allah. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van kilometer per uur. A. 80 B. 100 C. 120. Su-aasha xigta waxaa la yidhi op deze weg waddadani geld waxaa khuseeya in maximum snelheid xawaara ugu badnaan 5 kilometer meesha dhibicda inaad buuxisa laga rabaa kilometer per hour su-aashan waxaan ku buuxinaynaa c 120 cajaladan dad badan way yaqaanaan oo cajalad hore so laakiin su-aalaha la bedelay ayay ka mid tahay su-aashan snelweqa ama waqad sariica ama highwayga haddeertan waa 130 su-aashan laakiin ama cajalkan wuxuu leeyahay 120 insha Allah adiga laakiin maanka ku hay in 130 ay tahay snelweqa macna mar walba waa dil ku weydiyo. U heeft autopech. Mag u op deze wijze stil gaan staan? Su-aashan waxay leedahay u heeft autopech gaariga ayaa ka halaysan
mag uu ma lagu ogol yahay op deze wijze qaabkan oo kale stil gaan staan inaad u istaagto qaabkan oo kale maya waa meesha istaag lahayd way saxan tahay laakiin farajadi waa laga doonayaa haddii kale waxaa laga doonayaa waa khifaara drihug saddex geeslaha halista marka waxaan leenahay noocan oo kale hadduu gaariga noo halaysan yahay noocan oo kale inaan istaagno wax fiican maaha marka nee U wilt hier achteruit rijden. Mag dat? waxaa la yidhi waddada halka jiha u socoto oo loo yaqaano inrichtingsweg aad rabtaa adiga inaad gadaal u wado baabuurkaada maqdaad ma logol yahay waa maya u wilt hier achteruit rijden halkan waxaad doonaysaa inaad gadaal u socoto maqdaad ma logol yahay waa nee totally not U staat hier stil om een passagier uit te laten stappen. Mag dat? su-aasha waxaa la yidhi iyadana u staat hier stil halkan ayaad taagan tahay om een passagier uit te laten stappen si uu rakaab gaariga kaga degto maqdaad ma logol yahay waa haa meel walbo parking ah ama ha lagu ogolaado ama yaa lagu ogolaan inaad still stand ku samayso oo aad qof ka dajido gaariga waa la ogol yahay hadda meeshan waxay leedahay in alaab la dhigo alaab laga qaado waa la ogol yahay laakiin adiga inaad qof dhigto qof ka qaadan waa lagu ogol yahay insha allah U stopt hier voor een korte tijd om een passagier uit te laten stappen. Mag dat? halkana waxay leedahay u stopt hier halkan ay istaagtay for in korte tijd waqti yar om in passagier si qof rakaab ah gaariga ku saaran uit te laten stappen uu kaga degto maqdaad ma la ogol yahay waa maya waddada baskiilka ku sawiran hadday calaamadda ay isku xiran tahay ama hadday gaagoon tahay gebi ahaanba lama dul istaagi karo hal arin waddada baskiilka ku sawiran oo ay gogo'on tahay haddii aad doonaysa inaad leexato oo aad isku toosido ama jiiraad u leexanaysa ay ku taal oo inaad isku hagto la rabo foosoo teerin marka keliya aa lagu ogolyahay inaad isku hagto aad kor istaagto hadday isku xiran tahayna inaad kor istaagto lama ogolo inaad garab ka istaagto ayaa la rabaa haddaysan waddada baskiil ku sawirnayna waad dul fariisan kartaa haddaad rabto haddana waa maya insha allah waddooyinka baskiilka oo gaduudan waa labo midna baskiil kuma sawirna midna way ku sawiranta midda aan baskiil ku sawirnayn waad ku parking garaysan kartaa waad istaagi kartaa waad ku kor wadi kartaa wax ku diidaya mala midda baskiilka ku sawiran laba ayay kala yihiin ayagana waa mid gago'an stripkan gago'an leh iyo mid isku xiran leh labadaba waa isku xeer lama inaad gaari ku dul wado ama aad kor istaagto lama ogolo bas midda gago'an ayaa waxaa lagu ogol yahay markaad leexanayso haddii aad lacala jiirada leexanayso ay kugu taalo inaad isku toosido lagu ogol yahay keliya midda isku xiran calaamada lehna inaad garabka istaagto unbaa la ogol yahay U verlaat achteruitrijdend een parkeerplaats. Moet u de voetganger voor laten gaan? halkana waxaa la yidhi u firlaad waxaad ka baxaysaa achteruit rijdend adoo gadaal u wada gaariga in parkeerplaats meel parking ah mud uma ku khasbanta de voetganger qofka soconaya voor laad gaa inaad hormarido waa haa waayo bijzonder manoeuvre ayaa samaynaysaa wax qaas ku ah adiga marka qof walbooda isticmaalaya uu ka leeyahay insha allah Uw rijbewijs is u ontzegd. Mag u rijles nemen? su-aashaan hore usoo qaadanay wayna ku soo celiyeen rijbewijs laysankeeda is u ontzegd waa lagama mamnuucay in wax wado markuu rijles neeman cashir oo gaari wadada ma qaadan kartaa waa maya no U wilt hier rechtsaf. Moet u de voetgangers voor laten gaan? su-aasha xigta waxay leedahay u wilt hier rechtsaf waxaad u leexartaa dhanka midigta moet u de voetgangers voor laten gaan ma ku khasbantaa inaad dadka lugeynayaad hormarido waa haa because dhanka ayay ka imaanayaan intay goynayaan waxaad aragtay wejigooda amaba mataqaanaa xawadkooda adna waa leexane qaabkan way kaaga leeyihiin insha allah U wilt hier rechtdoor rijden. Mag dat? su-aashana waxay leedahay u wilt hier rechtdoor rijden inaad inta toos u socoto ayaad doonaysaa maqdad ma la ogol yahay waa haa boorkan waa dood loo bandweeg wada dhimanaysa weeyaan
gaduudka waxay ka dhigan tahay meelo uga sii baxda ma laha laakiin waad gali kartaa wax kuu diidaya ma lahan guryo ama xaafadaada inay ku taali karto ayaa laga yaabaa soo marka waad ku wadi kartaa waa haa waa la ogolyahay Wordt u hier gewaarschuwd voor een enkel spoor? su-aashaana waxaa la yidhi word u hier gewaarschuwd miya inta lagaaga digayaa for an enkele spoor meel tariin gooya oo hal spoor la ama hal wado oo tariin la waa haa calaamada labada xaba waxay ka hadlaysaa spoorweg overgang met enkele spoor waa yaa marka hadduu ilaahay idmo U wilt hier linksaf. Sorteert u zo goed voor? su-aashan waxaa la yidhi u wilt hier linksaf halkan dhanka bidix ayaa u leexan rabtaa sorteert oo so goed voor ma isku toosiday sida tan si fiican waa haa wadooyinka ee rectangles ah oo aan laga hor imaan karin aadan u rabta inaad u leexta dhanka bidix ayaa isku toosinay sidoo kaleeto wadooyinka lehne waa midda beramka ama cooska dhexa lehne waxay ka dhigan tahay marka halkan cid kaagama hor imaan karto qofkii ka hor imaanayo cooskan dhankiisa kale ayaa wado ugu taal ayuu galayaa so wadadaana dad ku sugan tahay cid kaagama hor imaan haddii lacala ay cid inay kaaga hor imaado baabuuro ay dhici lahayd oo aadna bidix u leexanayso inaad halkaa isku toosiso may ahaaneen inaad dhexda isku toosiso ama midigtii ay ahaan lahayd hadda laakiin waxaad og tahay in aan laga hor imaan karin so bidixa u leexanaysaa dhanka bidixaad isku hagtay ma la ogol yahay waa haa iyadana U wilt hier de motor inhalen. Mag dat? halkan waxaa la yidhi u wilt hier waxaa rabtaa meeshani the motor mootada inhaal inaad baasgareedo dhaafto magtaad ma la ogol yahay waa maya maxaa yeele boorka diiday inhaalanka iyo in laisku dhaafo waa boorkani marka waxaan leenahay insha allah nay inaad gaariga mootada dhaafno lama ogolo dadka qaar waxay leeyihiin waxaa la diiday baawar in is dhaafaan maya wuxuu ka hadlayaa waa motor voertuigen wax walba ku shaqeeya motor in isbaasgareeyaan waa la diiday marka U wilt hier achteruit rijden. Mag dat? waxaa la yidhi halkan u wilt hier achteruit rijden meesha inaad gadaal u wada gaariga ayaad doonaysaa maqdad ma la ogol yahay waa haa boorkan in rectangles maaha waa omlining oo keliya waa omlining dad la hagay jaalaha waxay ka tahay omlining in meel ay soo xirantay wado oo macnaha wadadan lagugu soo hagay unbay ka dhiganta laakiin inaad gadaal u wada gaariga maya kusoo kala fireedo waxaad diidaya ma lahan so marka gadaal ma socon kartaa ina baabuur ay ka hor imaadaanba waxaad diidaya ma lahan so marka waxaa leenahay gadaal gaariga ma socon kartaa waa haa waad ku kala fireyn kartaa baabuuro waad ka filaysaa marka waxaan leenahay ya insha allah U wilt hier van rijstrook wisselen. Mag dat? halkan waxaa la yidhi u wilt hier halkan waxaad doonaysaa ma aragtaabo van rijstrook leenka wadada gaariga lagu wado wisselen inaad bedelato oo aad dhanka kala gasho maqdad ma la ogol yahay waa maya maxaa yeelay meesha ugu dambeysa ay taagan tahay xariiqadana way isku dhegdheganta so daaroon lama ogola insha allah U wilt hier linksaf. Moet u de fietser voor laten gaan? su-aashan waxay leedahay u wilt hier linksaf halkan adoo gaariga elka wato bidixda ayaad u leexan rabtaa mutu ma ku khasban tahay fietser baskiilaha foolaadaka inaad hormarido maya baskiilaha wuxuu kaaga imaaday dhanka bidix so marka ma kaa laho waxaan leenahay nay inaad siisid kuma khasbanid nay weyaan insha allah U wilt hier linksaf. Moet u de auto voor laten gaan? halkan waxaa la yidhi u wilt hier linksaf adoo gaariga elka wato dhanka bidix ayaad u leexan rabtaa mutu ma ku khasban tahay auto gaariga foolka inaad hormarido may waa sidoo kaleete bidix ayaa kaaga imaaday waa gaariga isgoyska loo siinayo waayo isgoyska sinaanta oo loo yaqaano kale waa halkaasun so nagama lahan waxaa leenahay marka nay bidix ayuu gaariga nooga imaaday Wat is op deze weg uw toegestane maximumsnelheid? A.
80, B 100, C 120. su-aasha waxay leedahay what is op deze weg u toegestane maximum snelheid maxay tahay wadadani waxa lagu ogol yahay oo xawaaraha ugu badnaana toegestane lagu ogol yahay way maximum snelheid xawaaraha ugu badan haddii 60 ay ka dhamaato 50 dhamaato 70 dhamaato si automatically waxa lagu ogol yahay 80 waana aala 80 ayaa lagu ogol yahay. Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1. A. 1 motor, 2 vrachtwagen, 3 fietser, 4 auto. B. 1 fietser, 2 auto, 3 motor, 4 vrachtwagen. C. 1 fietser, 2 auto, 3 vrachtwagen, 4 motor. su-aashaana waxaa loo yaqaanaa waa for la taqaan op kruispunten sida loo kala horeeyo isgooska marka la joogo waxaa la yidhi what is here the juiste volgorde maxay tahay sida ugu saxan la iskugu xigo van for la taqaan oo loo kala horumari lahaa halkan waxaan aragnaa baaskiilka inuu haysto forines boorka jaalaha ama huruuda gaarigana sidoo kale laakiin labadooda yaa tooska raba baaskiilka tooska doonaya way iska hor imaanayaan sooma baaskiilka ayaa tooska doonaya ugu horreyn soo baxayo labaadna waa gaariga cad oo laabanaya dadka qaar waxaa la isku qaldaan wixii tooska raba baxaya maya wixii tooska raba ka baxaya markaas isku mid aad tihiin weeyaan isku wada inaad tihiin aad ka hor imaanaysaan laakiin qof wada kale kaaga yimaado oo toosay kama laha haddii uusan kaa lahayn hadduu mataqaanaa boor ama xaq kale uusan kaaga lahaanin hadduu bidix ka imaaday waa ka leedahay hadduu haytan leeyahay oo toos la rabo waad ka leedahay so baaskiilka ayaa inooga horeeyo gaariga ayaa ku xigo mootada ku xigto kadib gaariga weyn waana beyda fiets auto motor farqta au wagen beyda weeyaan. U wilt linksaf. Moet u de voetganger voor laten gaan? waxaa la yidhi su-aashaani waxaad rabtaa inaad bidixda u leexato ma ku qasban tahay qofka lugeynaya soconaya inaad fasaxdo dadka qaar sidoo kale waxaas kaga khaldan stopka istaaji waayo maya mida kale wadada carada ama ciida ama jayga haddii aad ku sugan tahay ama waxay taandi oo ku heeyo ama stop board oo ku heeyo cidda kaliya oo kaa leh waa bestuurdas qof wax wadaaya mooto baaskiil baabuur wada kaliya ama faras wada ayaa kaa leh qof soconaya oo dhinacyaha kaaga imaanaya male kama laha so wax kaa leh wax weeyaan waa bestuurdas waa darawal oo kaliya qof soconaya voetganger kama laha dadka qaar waxay leeyihiin soo stop kuma hayo maya kan waa voetganger xataa qofka baaskiilka wada iyo mootada wada hadday mootada ka degtaan ay riixayaan waxay galayaan booska socotada ma qofka soconaya soo aygana kama laha qofka farasta wada laakiin hadduu farasta ku dul fariista ama uu ka degto laba jeeraba waa darawal asiga uu ka leeyahay oo dhinaca bidix dhinaca midigta iyo bidixda kaaga imaaday soo hada su'aasheena voetgangerka dhinaca midig ka imaada ma ka leeyahay maya hadduu bidix ka imaada ma ka leeyahay laakiin hadduu baaskiil uu qofku wadaay baabuurda uu ka lahaan lahaa because stop ayaa ku hayo hadda marka waxaan leenahay nay hala iska ilaaliyo insha Allah. Okay intaas ayaan ku soo khatinay cashirka ama waa cajarada loo yaqaano bulletka su'aalaha afartanka ahaa alxamdulillah insha Allah taala wa in salaamaya hadduu ilaahay idmo subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.